والسلام يا دمان النبض الصوماليات جارها شعب كثير بطلان ميلي تشوغان بدي داخل به سؤال شهر هذا نص النقطة أولا نرت إلهي بعد هذا السكالة ما أنت وقت كان مسوق عسيي وعن كلام من العلم إن الله عليه أنت كغيب قادتي أو وقت ينف يمال بجري شركان ك دولة بنتلان وما أنت كوي إلا باتي ترستي wax badan baa loo soo joogay waqti dheer bay u baahan tahay meeshii laga keenay iyo meesha ay maanta joogtay meesha loo wado in laga warraba waqti dheer bay u baahan tahay laakiin waxaan rabnaa maanta inaanu shacabka Soomaaliyeed iyo reer Puntland la qaybsano farxadda iyo faystada Puntland waxay uga dhigan tahay maanta inay dadku arkaan meeshii wax laga soo bilaabay qofkii ogaa kii aan ogeyn kadib dhashay ama xilliga aan aqli lahayn ama meel kale ku maqnaana inuu ogaado meesha wax laga keenay maanta meesha wax la marinayo waxaana cashar ku filan daakay fantasiyi la sameeyay wixii meesha lagu soo bandhigay amnigu sidoo ahaa mujtamaci meesha isugu soo baxay madaxdii meesha fadhiyay waxa soo dharin marka waxay muujinayaan dowladnimada reer Puntland inay gaadhay meel la oran karo alla ilaahay waa la shaqeeyay oo waxba la qabtay oo madaxdii ku kala dambeysay kursiga ninba uu meel maanta wax keenay xukuumadda maanta joogto Saciid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Jari madaxda ka yahay insha Allah iyadana inaan ka filayno inay meesha meel ka wanaagsan wax ka keenay nabadoone 12 sano ee ay Puntland jirtay madaxweyne walba oo soo mara wuxuu yiraahdaa waxa aan gaarsiinayaa Puntland doorasho qof iyo cod ah taasina wali lama arag mana suurtoobin marka miyaan la is oran karin Puntland 12 sano ee ay jirtay waa jugjug meeshada joog waxa ay wado horta doorashada codkiga qofkii codka ahi wax gaar ah qaban mayso muhiimadu waxa uu dalku inuu amni yahay in adeegyada bulshada socdaan in shaqada dawladdu socoto in nidaamkii dawladnimo baa laga rabay madaxda la doortayna hadda ama hal cod iyo qof lagu doorto ama xulashaha lagu doorto waxa muhiimka ah waxa weeye madax lagu kalsoonayaa inay tahay marka tan halka cod iyo qofka ahna waqtigeedu dawladdu iyada laga rabaa hadda inay keento laakiin duruufo mar walba hor istaagayada jiray ama abaaraad jiray ama colaadaad jiray waa ka warqabtaa Soomaaliya inuu qayb ka mid ah nahay maahin dalka madax bannaan oo xuduudo gaar ah u xiran yihiin xeer gaar ah oo charter gaar ah oo Soomaaliya ka baxsan marka Puntland Soomaaliya oo dhan baa ku nool oo u soo qaxday gobolada koonfureed baa looga yimid kuwa waqooyi baa looga yimid kuwa Djibouti baa looga yimid Kenya looga yimid meel walba Soomaaliya oo dhan baa ku dhan marka iyada lafteeda u baahan in la nadaamiyo markii nidaam la helo Soomaaliya oo dhan ka hirgeli kara Soomaaliya oo dhan baa qof iyo cod u baahan laakiin iyadoo Soomaaliya inteedii badnayd kala daadsan tahay Puntland anigu ma qabo in laga filayo wax weyn oo dhinacaas ay qabsoomaan waayo qofka maanta codaynaya waa inuu yahay qof diiwaan leh oo la yaqaan oo nidaam bari kan galmudug ka yimaada caaw garow jooga kii uu Hargeysa ka yimid uu jooga garow jooga kii ka yimid Kismaayo jooga kulli waa degan yihiin oo labada reer oo qof leeyahay midna xamar buu degan yahay midna garow degan yahay ama gaalkacyo marka duruufaha shira yaa kalifaya mararka qaarkood inaan wixii la rabay in la qabto aysan qabsoomin inta badan colaadaha ku furan oo hadee Soomaalida aan fadhiiso ogolayn oo dhulka markii doorashada laga sameeyay waa inuu yahay waa garta dhul amni oo deegaamada dariska la ay isagu ay kala amni qabaan si gudihiisana wax badan laga qaban karo waa gartay Yaasiin Cabdisamad Puntland markii la aasaasay goboladii lagu aasaasay qaarkood ayaa inta ay jirtay gacanteeda ka baxay marka miyaan la is oran karin Puntland horay uma socotay gadaal bay u socotaa ma ayar lama oran karo gobolada horta sideeda gacanta ka baxay waxba gacan ka baxay waxba gacan ku jira ma dadkii dalka degan Soomaaliya oo dhan baqaranimadii waxay u burburtay su'aasha inta aan keenin waxa ka haboon in la yiraahdo maxaa Soomaaliya maxay u burburtay caasimada Muqdisho maxay maanta tahay inaad tiraahdaa ka haboonay caasimada Soomaaliya ahayd maxaa ka dhacay maanta saseebayta
marka gobolada maqan gobolada leedahay Puntland gacanteeda ka maqan yihiin gobollo kale iyo dad kale oo Soomaaliya ku soo duulay dhibaatada ka wada dadkii deganaana waa degan yihiin kala qaybsanaanta ra'yigu waa jiri karaan laakiin Puntland hadda waxna waa la qabtay waxna waa baaqsan dabeecadda bini'aadamka sida Puntland waxay tiraahdaa waxaan ahay hooyadii federaalka mararka qaarna caqabadaha ugu waaweyn ee dawladda federaalka hortaagan waa iyada oo abaabul u sameeyay maamulada kale ee dalka ka jira marka miyaan la is oran karin magac bay hooyada federaalka ku tahay ee hooyadii federaalka dhabteed maaha adeer ma isaamaa warkaas horta wariyayaasha iyo qoliyaha saxaafadda iyo Facebook laga faafiyaa in Puntland caqabad ku tahay federaalka Puntland caqabad kuma aha federaalka waxa ay federaalka gelisay oo naf iyo maal ahaa la rabaa in lagu xaqiro iyo subcadeedii iyo magaceedii micnuhu sidaa ma aha federaalku hadduu abaal leeyahay ama Soomaaliya abaal leedahay Puntland waxay u gashay federaalka way ogtahay waxa hadda la isku hayaana ma aha Soomaali nacayb iyo dawlad nacayb waxa la isku hayaa waxa weeye war xuquuqda aan ku leenahay dawladda federaalka annagu maamul baanu nahay dawladaha federaalka kamid aanu nahay waxaanu u baahanahay xuquuqda aan dawlad ahaan u leenahay inaanu helno dawladda Puntland iyada loo idmaday inay dawladda federaalka iyo shacabka isku xirto xuquuqda dawladda dhexe lagu leeyahay ka keento mid dawladda dhexe leedahay inay siiso laakiin haddii dawladda dhexe iyadoo waxba meesha ku hayn ay tiraahdo darigaad idinku dabka saadeen baanu idinla walaaqaynaa kii xagga ahaan wax ka qaban mayno suurooyinayso waxyaalaha la isku hayaa waa afkaaro noocaas ma aha Puntland caqabad ay ku tahay federaalka shacabka reer Puntland waxaan leeyahay aynu taabagelino dhamaystirka dawladnimada Puntland dawladdan oo hadda dani ka yahay madaxweynaha waxaa laga rabaa inay doorashooyin kii qabato tirakoobkii dadka inay samayso xuduudihii degmooyinka in la habeeyo difaac deegaanada in la habeeyo dawladnimadii si ay u taabagasho waxa ka dhiman shacabku hadday gacan ka geystaan waxbay qaban karaan anigu hadda muddo yar aan gaalkacay maayarka waxaan xaqiijiyay shacabku iyo madaxdu hadday wada shaqeeyaan dadku waxbuu qabsan karaa waa ka maarmi karaa inaynu cid ku colaadina ama aynu baryo meel kale laga keenay aynu gacanta u hoostano waxaana ayna ku filan laakiin waxa weeye inaynu madaxda adeecno madaxda waxa la rabaa inay iyaguna u fakaraan dalka oo dalka sidii wax looga qaban lahaa loo horumarin lahaa ay ka fakaraan waxaan kaloo leeyahay shacabka reer Puntland federaalka iyo inaga yaan la isku keendirin dawladda federaalku waxay ka mid tahay raasamaalkeena waxa ku dhumay wiilal aynu jecel lahay waxa ku dhumay dhaqaalaheennii waxa ku dhumay xooggeennii Soomaaliya cidi ina kama laha cid federaalka gaar u leeyahay ma jirto haddii cidi nacayso qolada ugu dambayso oo meesha looga tagayno noqonaynaa dawladda federaalka dawladnimada iyo shakhsiyaadka madaxdaahina waa kala duwan yihiin shalay kuwa madax ka ahaa maanta kuwa jooga berrina kuwa imaanaya madaxda waa la dhaliili karaa laakiin Soomaalinimada iyo dawladda federaalka midna laba diriri karo beelaha dega Puntland qaar ayaa cadasho qaba oo yiraahdo kuraasta Puntland hadii aan lahayn wasiiro ama xildhibaano waxba kama helno arintaas soo aragtaa arinta qolada kuraasta qaybisay weydii madaxweynaha iyo xukuumadda iyo meelaha weydii fadlan subscribe saar kambalada